anigu meeshan uma imaanin inaan wax kala daadsho waxay aan u imaaday inaan isku haayo sii xoojiyo kor aan qaado ayaan u imaaday meeshan meel qabiil leeyahay ma ahan meel koox leedahay ma ahan meel ay qof leedahayna ma ahan waa meel qaranka Soomaaliyeed ka dhaxaysa waa meel ad wada leedihiin ahmiyadda koobaad oo anigu aan sii doono waxay tahay tayada iyo tirada hay'adana kor in loo qaado shaqada la dagaalanka argagixisada iyo shaqada sugidda amniga qarankana meeshaad ka sii wadeen meel ka dheer in la gaarsiiyo hay'adan waa hay'ad wadanka muhiim u ah muhiimadda ay u leedahayna waxay muujinaysaa maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ka soo qaybgalka oo nagala soo qaybgalay xilweejinta ayay calaamad u tahay ahmiyadda uu siinayo madaxweynaha waa mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa hadii la yiraahdo taageeradaada la'aanteed iyo tusaalaha la'aanteed meesha la soo gaaray lama soo gaareen gacantaada u baahannahay kaalmadaada u baahannahay hadii la yiraahdo hay'adan shaqadeedu waa ilaalinta danaha qaranka macnaheedu tahay dadka Soomaaliyeedna hay'adday leeyahay hay'adda dadka shaqeeyaan dalkay leeyahay dalkan dadka iskale waa idinka qof kastoo weyn iyo qof kastoo yar iyo qof kastoo shisheeya iyo qof kastoo sokeeya oo cadalba inaad ka ilaalisaan ayaa la rabaa ilaalintaas aad ilaalinaysaan fara badan ayaa ka soo gaaraysa hadda ka horna waad ka soo gaartay laafiinaad ku waanaysiin hawshaas marka waxa la rabaa inaad u dhabar adeegtaan si u xoojisaan anigu meeshan uma imaanin inaan wax kala daadsho waxay aan u imaaday inaan isku haayo sii xoojiyo kor aan qaado ayaan u imaaday meeshan meel qabiil leeyahay ma ahan meel koox leedahay ma ahan meel ay qof leedahayna ma ahan waa meel qaranka Soomaaliyeed ka dhaxaysa waa meel ad wada leedihiin aniguna idinka ayaan idinku mid ahay haddana oday mid ka tagay idin soo noqdana sidaan shalay idinka tirsanay aan idinka tirsanaan doona hadii la yiraahdo ahmiyadda koobaad oo anigu aan sii doono waxay tahay tayada iyo tirada hay'adana kor in loo qaado shaqada la dagaalanka argagixisada iyo shaqada sugidda amniga qarankana meeshaad ka sii wadeen meel ka dheer in la gaarsiiyo runtii waa idinku kalsoonahay nin waa iska garan kara cabsiya jirta qof markuu meesha yimaado tiim uu wataa dad uu bedela waxaas iska jirta qof la bedelayo lama arkay ku bishaaraysto horta kaliya qofka la bedelayo waxay tahay markaan muddo joogo oo fiirsado qofkii shaqadiisa ka soo baxana waa amaano yahay meeshiisii meel ka koreysana uu tagi doonaa kii aan ka soo bixin dayacaad iyo ku tagrifal ma la iska yeelay waa in qofkaas markaas la wareejiyo duruuftaana wareejinaysa nin hadda la tuuraana ma jirto wali familku ka tirsan yahay hay'adu ka tirsan yahay meeshan idinka iskale qof idinka la ma jirto inclusivity wax la yiraahdo hay'ad waa inclusive haato waliba gabdhaha meeshan hadda sida ay muuqata waxa jooga waa rag gabdho badan kama muuqdaan hay'adda waxa la rabaa in gabdhaha ku soo bataan hadii la yiraahdo waddanka Soomaaliya ka soo qabo in hay'adan ay tahay cuuriyaan indhale ayadu wax arkaysa laakiin lagu ay ku dhaqaaqda aysan lahayn dalka intiisa kale uu yahay nin xoog badan oo aan indha lahayn marka anaga waxaan rabnaa ninkaas xoog galo indha lahayn meeshuu rabo soo gaar inaan kor fuulno oo tusno marka waa dadaali doonaa insha Allah aniga priority-ga koobaad labaad saddexaad dagaalka shabaab waay hay'adda idinka iska loo wadi doona hadii la yiraahdo dagaalka shabaab meeshuu joogay meel ka dheer in la gaarsiiyaan ka shaqeyn doonaa dabcan qooraha lagu faanayo xoog lagu faanayo idinka iska leh maskaxda iska leh madaxweyne akhyaarta dhalinyarada develop garaysay drone waxay mudan yihiin dhiirigelin waxay mudan yihiin abaalmarin waxay mudan yihiin xirfadoodaas iyo initiative-koodaas ama dadaalkaas in la yimaado in la guubaabiyo meel la gaarsiiyo annaga waxay noo la mid tahay hawshaas ay bilaabeen annagoo dayaxa gaarno kaleeto madaxweynaha Mareykanka kamid ah wuxuu yiri John F Kennedy ahaa mumkin aan gaarno dayaxa waa inaan gaarno waa dream marka dreamkaasna oo madaxweynaha uu leeyahay oo aad wada leedihiin inaan wada gaarnana waa rajaynayaa madaxweynahana waxaan rajaynayaa hadii la saddex qabiyo inuu iska tagay dagaalka shabaab oo qabiyo inuu iska tagay midnimada waddanka oo qabiyo ah oo dhaawacan inuu iska tagay shisheeye oo quudkeena iyo ammaankeena haayeen inuu iska tagay
intaasna waa ka shaqeyn doonaa aniga wax leegu eedaa ma jirto shaqada ninkii haayo mahad uga taga haynaya gabaran wata male qof aan wata male qabiil aan wata male qof aan wata aniga ma jirto shalay markaan soo malay meelaha dhalinyaro fara badan oo aqoon-yahan ah oo gabdho wiilal isugu jira meesha joogay meel kasta joogay oo organize garaysan oo niida oo warbixin la fahmi karo diyaarinay runtii I'm proud taliyuhuna waxaan jeclahay sidoo kale inuu proud ku yahay oo ku faraxsan yahay taliya hadii la yiraahdo meeshaad dhigtay waa ka sii wadi doonaa waxaana waa qori isku dhib hadii la yiraahdo madaxweyne soo dhawow noogu duceeyo xilka aad noo dhiibteen in ilaahay uusan nagu ceebin annagana perfect ma nahin laakiin waa dadaali doonaa wax aan reeba doono hadii ilaahay yiraahdo ma jirto meeshaan meel lagu raaxaysto inay tahay inaysan ahayn waa ogahay idinkuna taas ogaada madaxweyne waa mahadsantahay noo soo dhawow insha Allah